بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإني سلامي أمد الصوماليات ملكز تود جوبتان وحان ليه سو دوادا وولاشن خطرة محاجر وصعدان السوق لي قبليها ويا وكنا لا قرب جوبتاها حالي لما صيحان إنان ليه رنتا إني شيء هيا حالي التليفون هذا يزوم كأي اسكو ذحرنا وصعبيض على اسكو صو ذحرين dhibaatada maaragtay ulajeedada laga leeyahay galmudug ayaa qof kasta oo bilaadan oo dhiig leh oo ka damqaday oo magaca huwiye sheeganaya dabandaabada lagu wado magaalada galmudugna wax la qaadan kara maahan waxa uu qorqor sameynayaan wax aan ka yeelayna maahan ninka mareexaan oo dabada ka riixay ulajeedada uu ka leeyahayna waa fahmi karnaa sababtoo ah annagoo ciidankeeni la baabi'iyay wax garadkeeni la baabi'iyay ilaa 50 qof hilbahoodii dhulka ay daateen oo maaragtay aqoon-yahano iyo maaragtay rag wada saraakiila meesha ay ku wada dhinteen oo weli hilbahoodii ay dhulka daadsan yihiin ayaa waxaa la damcay shalaydii horeeto in faysta lagu qabto galmudug ayadoo lasoo amrahayo qorqor oo nin kaloo mareexaana oo dabada ka riixayo aanan ilaah ka cabsi aynu ku jirin ayadoo tacsi ay u taallo galmudug ayadoo tacsi gaalkacyo ay taallo raggaan arkay oo Soomaaliyeed ay ku dhamaadeen ama did ehela ay ku dhamaadeen oo hadda saakidan la rabo faystada in la sameeyo marka annaga horta aad baan uga xunnaa haddaan nahay habargidir ragga ku raaca taasna waa ka fiirsan doonaa qorqor waa waxa la iskaga daba hari doonin haddii ayadoo tacsi ku dhigan tahay naagihii laga dhintay ilmihii agoonta weli xasaska oynahayaan ilmihii aabahood oo ka dhintay weli oynahayaan naagihii Sweden joogay iyo naagihii gaalkacyo joogaba weli ay wada qaracsan yihiin oo meel ay meydkooda u raacdaan qaarkood aan la ogeyn oo hilbihii iyo ciidii ay isgaleen qarxan uga soo arko u dhacay oo ma aragtay kii wax qarxinaya ankii qoorta kaliya ay ka soo arto hilbihiisa meel uu ka baxay aan la aqoon marka waxaan rabaa inaan inii sheego waraadoo tacsi ku taalo oo meyd ku dhooban yahay weli oo qoyan yahay weli hilbkii iyo dhiiggii weli dhulka daadsan yahay oo maalin ka soo wareegad sad ku keenteen inaad tirahaan waxa la sameeynayaa faystada aad sameynaysaan maxay tahay winnow waan ognahay maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu yiri yuuna ka soo noqonin qayre asoo qayrana iga keentay ninkaan la leeyahay maxamed xuseen rooble ha lagu soo dilo magaalada galmudug oo asagu ka soo jeedo degaan ahaan ha lagu soo qaarijiyaa yiri ninka mareexaan iyo waxay oleynayaan qorqor waa inay ra'iisul wasaaraha qaarijiyaan haddii uu ka badbaado tan lala raba galmudug inay ku dhacdo ra'iisul wasaaraha maanta indhahayga aniga habeenii maalin waxay ii tahay ma aqaanaba markii sababtoo ah ilaa xal 8 saacadood soo jeednay maxaa saxdo waa 2 saac waxaan dhameen salaad subaxana loo wada kacay 12 saac marka waxaan ka xumahay haddii lacalla oo rooble uu ku badbaado dilka la qorsheynayo oo galmudug ka socda muqdisho ku badbaadeen waxa lagu sameynayaa sidii injineeriisa oo kale bambada miskiisa loogu xirayaa wajigiisu aad isku bedelay ra'iisul wasaaraha aad u qayrmay ilaahayna waxaan ka baryaynaa ilaahay wax dila ilaahana wax nooleeye ilaahay wiilkaas inuu xaafido sababahan u leenahayna waxay tahay wax kale ma ahan waxaan u jeednaa weygii lagu qaarijin lahaa in galmudug laga abaabulahayo marka ciilka intaas la eg oo ra'iisul wasaarihii shalay yimid aan waxba ka sameeynin farmaajo ilaa heerkay Fahd Yaasiin ay sacad ciilka ay u qabaan ilaa hadda anigu waa fahmiisana waa wax weyn Fahdo waxa la yiri nimba waa maalintii Fahd Yaasiin waxa la yiri nimba waa maalintii maanta ayaad waxa tahay sirdoonnimadii baad waxaad ku darsatay inaad dawladii adigu xukunto oo aad iska heshay madaxweyne aan aqli iyo maskax midna lahayn oo wuxuu hadda ku hadlo aan biri xasuusan ama saacado ka bacdi aan xasuusan ceebtii ugu weyneed oo nagu dhacday Djibouti waa arkaynay dawladihii agado isku wada yimid waxa meesha uu ka sameeyay aniga waxa waaye waatana madaxweynihii Kenya muxuu ka sameeyay ciidamada masaaraya Kenya Soomaaliya lama dagaalsano Soomaaliya Kenya wax ka dhaxeeya male baddaas la isku haystaa Kenya waxay ogtahay badda inaan anigu leeyahay maalintii reality dacwo gaartana ay baddayda Kenya ay cadufta dib u liqoysay inay biyayga baddayda lahayn waa lagu kala guurayaa Soomaali siyaasadda Kenya iyo Soomaaliya si fiican bay u kala baxaysaa waqtiyaana loo qabanayaa dadka bacmushtarka inay wadanka Nairobi ka soo baxaan laakiin maanta today oo wali maxkamadii freezing farmaajo uga dhigay oo raba siyaasad inuu uga soo baxo dawladda Kenya iyo ma aragtay sharaxaad ayaan ka soconaynin marka anigu waxaan leeyahay
kenya waxba nagama dhexeeyaan kenya iyo soomaaliyana dagaal ka dhexeeya official ma jiraan ninkan wuu fududaaday ceebta kuugu weynna dadkii saas u buuxa waa wada naxeenaa lagu leeyahay dadkii ka wada yimid wadamada africa markuu yidhi Fahad Yaasiin aan waxaan sameeyey may fahad marka Fahad Yaasiin baa wadanka xukumo mise adaa madaxweyne ka Fahad Yaasiin waa sirdoon Soomaaliya madaxweynimadeeda shaqo kuma leh adigii buu ku maamulanayaa maskaxdii buu kaa dhaqay marka adaa laga rabaa sunta lagu cabsiiyay inaan ogaano oo dadkii aad ku baabi'isay oo hawiye aad ku baabi'isay oo qaaqlayaal aad u samaysay oo dhaqaalihii waddankoo dhan aad Facebook ku bixinayso adduunyada adoo kale kama dhicinaan ku leeyahay ninka ugu sharaf xun ayaa tahay madaxweynimana maba istaahishid waana lagula xisaabtamaya adduunyo aakhirana ilaah baa kula xisaabtamaya barkay aakhir xisaabta rabbiya iskale afraha ka saarnay wax lagu cafinahayna ma jirto farmaajo yaa been lagu sheegin dad baad hilbahooda cuntay dad baad lacag ku bixiseen cidda marreexaanna waxaa leeyahay waxaa la yidhi soo joog ninka laga waayo soo jiifsaa laga helaa farmaajo berri buu baxayaa soomaalina adinkaa isku dire qaraxyada aad gaalkacyo ka samayseenna mid la yskaga hari doono maahan niman macawislayaal aan saan arkay aad uga oydeen qaraxa aad rabtaan inaad ku qaarijisaan ra'iisul wasaarahana marreexaan waa la ogyahay laakiin maxaa ka dambayn doona yaa dhiman doona haddii ra'iisul wasaaraha uu dhinto dad badan baa dhimanaya waana ballan ilaahay taas la qaaday qurbajoog oo dhanna ay qaaday maanta waxaa la fahansan yahay taadkadiinni marka anigu waxaan leeyahay cidda sacad waxaan rabaa inaan u sheego gabdhaha hawiye gabdhaha hiraab waxaan rabaa inaan u sheego hilbihii meydkiinni oo qoyan oo weli gaalkacyo yaalla ayaa qoorqoor iyo ninka marreexaan waxay ku dadaalahayaan lacag laga ballan qaaday in la siiyo oo lagu qaarijiyo ra'iisul wasaaraha xishmad male qoorqoor risbad ma yaqaano waa nin taariku salaada waa ninaan tukanin waa ninaan u damqan dadka uu ka soo jeedo laakiin insha allah biidnillaahi alkariim waa la iska qabanahayaa adoo u maleeyay qoorqoor inaan lagula xisaabtamaynin meydadka sacad soo ugu tumanahayo oo maalinba meel uu ka qarxinahayo oo maalinba nin uu eryanahayo qoorqaar oo ishaa lagugu wada hayaa qurbajoog oo dhan ishay kugu wada haysaa cidda sacad iyo habar gidir oo dhan iyo hawiye oo dhan inaad animaali tahay waa ku aragnay laakiin insha allah adiga markii lagu qaarijiyo ayaan alalaasaynaa aan ka leenahay annakuna facebookyada waa ballan ilaahay haddii maanta laga dhigo oo nin sacada oo nin ciidana oo nin sacadoo waxgarada uu isku tago baadhigaas adaa isdilay adaa bah isdilay adoo meydkaadii uu yaallo oo hawiye oo dhan maanta ay xanaaqsan yihiin qurbajoog oo gabdhahooda xalay qof seexda uuna jirin oo xalay dhan lagu jira wada zoom iyo maaragtay maxaa la dhahaa whatsapp live iyo zoom oo maaragtay la iska wada fiirsanaya qoloba meel ka soo gashay waxaan leeyahay waa micno ma leh dhimashada wixii dhacaayo waa qoran yihiin sababtuna waa qoran tahay wax kastana rag baa soo abaabula raggii soo abaabulayna ayakaa gacan ku dhiglayaal ah wixii dhintana waa dhinteen laakiin maanta ayadoo dheecaankeenni iyo dhiiggeenni uu daadsan yahay oo hawiyesaan aragno loogu tumanahayo oo meydkeenni weli gaalkacyo uu maaragtay meeshii dheecaanka uu ku daatay ayaa waxaa la rabaa faysto inuu qorqor ku qabto asagay ninka marreexaan marka lacag meeqaa lagu yiri waa lagu siinhaya anigu waxaan u arkaa taas bahdilaad nimanka hawiye lagu bahdilahayo siiba habar gidirta haddii uu qorqor dhiiggii meeshii tacsidii oo taallo weli ya uu rabo saaka inuu ku qabto anigu waxaan ka leeyahay markaas cidda sacad waxaan leeyahay inta dhimata allah u naxariisto go-aanka gaara ka dheeraada qorqor waxaad aragtaan inuu dhiiggiinni korkeedii faysto ku qabsanahayo oo ma aragtay bahdil laakiin asagaa la bahdilahayaay annaka nalama bahdilahayo annaka wixii naga dhintay waa naga dhinteen laakiin qoorqoor ayay bahdil u tahay ragga tolkooda dhiigoodii meesha uu ku daatay inuu faysto ku qabsado waa wax asaga ma aragtay shakhsiyadiisa la tusahayo inuu qof shakhsi xun yahay la tusahayo ayay ka mid tahay waana wax aad looga caroodo oo aad looga xumaado aad iyo aad baanan uga xunnahay waxaan rabaa programkan in la isgaarsiiyo in meel kasta la geeyo kuliba gabdhuhu waa soo geli doonaan insha allah biidnillahi alkariim waxaan leeyahay saana kuma harayso saacada kabacdina waa soo geli doonaan reer holland iyo reer maraykan iyo reer ingiriisa soo wada gelahayo waa lasoo wada qabanhayaa inkastoo aniga hadda iga dhacay geedkii dhulka laakiin waxaan in leeyahay meesha dhiiggeenu yaalay ayaa qoorqoor iyo ninka marreexaan waxay rabaan faysta inay ku qaataan oo weliba lacag laga ballan qaaday waxaa la yidhi haddaa faysta meesha dhiiggu ka dhacay aad ku samaysaan lacagtaasaa leediin marka ra'iisul wasaaraha waxaan leeyahay ilaah u xaafido allah ku xaafido annagu waxaan ognahay ragga sirdoonada nala shaqeeya oo soomaaliyeed wiilal waxaa jira aad sirdoon u ah oo hadallada soo gudbiya hadallada la yiri waxay tahay in adiga lagu qaarijiyo ayaa lagugu talagalay in lagu dilo oo dhulka aad ka dhalatay galmudug lagugu dilo oo hadhowna la yidhaaho dhulkiisiyaa lagu dilay
haddii ilaahay gacisa wajalla uu kaa badbaadiye fariinta fahad iyo farmaajo ay fareen muqdishaad ku dhimanaysaa kulley waxaa la yidhi ninku meeshuu ku dhashay waa la yaqaan meeluu ku dhinta lama yaqaano waxaana rag caqli xun baa ka shaqaynahaya laakiin insha allah adeer cabdi qaydiidna halkaan xafidullaahi waxaan uga dirhayaa wiilkaada qaaliga ahaa qoojo dagaari waa dhinta allah u naxariisto laakiin adeer cabdi qaydiidoo haddaad ka yeeshay meesha dhiiggii qoojo dagaari intaas 50 nin oo ma aragtay sacda ay ku dhinteen iyo niman kale in baarti lagu dhigo oo lagu tamshileeyo oo lacag lagu qaato ayaxumo waxay u tahay nimankiina sacad oo ka qaybgeli doona baartigaas ayay bahdil u tahay waana ku dilay dhiiggaadii meeshuu yaallina baadhiyaan kuugu dhigay marka waxaan leeyahay ilaahay ha loo dhowaado nin allaaloo ciidana iyo nin kastoo sacadana inuu meeshaas ka dheeraado una baadhiyadaas una ka qaybgelin inay ka wada cararaan qoorqoor iyo wixii meesha ku leh hadday ayagu ku dhigan hayaan ha ku dhigtaan qof kastaba waxaa la arkahayaa maaragtay nasbiyadiisa hoose say tahay shaksiyadiisa sida ay tahay ayuu ismuujin doonaa qoorqoor ma baadhigaas dhigi mise tacsidaas baroor diiqda si fiican u sameeyey oo u tegiye naagii oo lacag u geeyey ila wadanka dhaqaalihiisii oo dhan asaa xaday galmudug wax allaali wixii loogu soo dhiibay asaa jaababka ku shubtay oo guriga ku gatay waa ogtihiin oo ciidamada lacagtoodii anigu waxaan ballan qaadahayaa horena waa idinku sheegay ay ugu raaceen gabdhaha oo weliba laygu aaminay ila dadku waa i yaqaanaane nin kastoo ciidanka magaca hawiye sheegta hadduu galmudug yahay hadduu xamar yahay hadduu meel kasta joogo ciidan kastoo hawiye haddii uu ka tago farmaajo oo dhulkiina sekuuritkiisa adkaysaan gaalkacyana laga soo saaro dadka masaakiinta barakacay oo raxan weyn oo dhulkoodii oo barwaaqaan loo soo celiyo ilaa maanta dhibaata kama jirto qaraxna kama jiro koonfur galbeedna waxba kama qarxaan waa ogtihiin somaa marka lasoo celiyo gaalkacyo sidii ballanku ahaa dad baa lasoo wakiilanahaya oo imaanahaya mushaharkiina caadi buu bangiga uga baxaya nin kastoo magaca hawiyaa waxaa la helayaa nambarkiisa iyo wixiisa waa lala soo xariiri doonaa meel oynan dadku shaqo ku lahayn ayaan wax kasta lagu samayn doonaa waa la isqaybin doonaa anigu waxaan ballan qaaday in lacagiina mushaharka ah aad helaysaan qof aniga social mediaha keliya laga yaqaano miyey qof waxaan ahaa horena loo yaqaano dadkana aan dhexgeli jirin dhibaatana aan xoolo dadeed iyo waxna midna ku saqajaamin mana hunguriyeysto waa iskala weynaa waxyaalaha qaarkood laakiin waxaan rabaa oon ballan qaadi karaa ciidamada hawiye inuuna mushaar la-aan ayna ku dhicin beeleedka farmaajo oo dadkiisa lacagta ku siiyey dhaqaalihii ay lahaayeen shacabka soomaaliyeed iyo ciidamada soomaaliyeed oo wuxuu ka dhigtay dhaqaalihii ummadda islaameed iyo lacagihii canshuuraha hawiye laga qaadaya magaalada muqdisho ayuu beeshiisa ku masruufaa beeshiisa guryo ugu dhisay hoteelada ugu dhisay waxyaalo badan oo waxaa jira bal hadda naagtii fanaanada ahayd waa fanaanad qaran waa fanaanad soomaaliyeed lagu leeyahay nakruuma maba noqon kartaba waa naa qabiilna ma noqoto fanaanad soo maaha marka qofkaas oo kalena waa laga cararaa meel laaliyo meeshuu joogo marka waxaa idii sheegahayaa waa la qayrhayaa waxaan rabaa ciidamada saacad waxaan leeyahay waxa la samaynhaya baadhiyada la samaynhaya ka dheeraada ka carara dhiiggiiniyaa daadsan niman sacdaa meesha ku baaba'ay waxaan leeyahay qorqor waa ina bahdilahayaa asagii baa la bahdilahayaa oo magacii habargidir lagu bahdilahayaa markaasu wuxuu isleeyahay nin mareexaan oo xunoo xukuma cunugeero injiri aad u malayso wuxuu leeyahay wariha lacagaa nala siinhayaa baadhiga dhig meeshan waxaa la rabaa ra-iisul wasaaraha in lagu qaarijiyo hadalkaas waa iga hadal waa kusoo noqon doonaa dad baa soo geli doona marka waxaan leeyahay ciidamada sacad ka carara meel kasta oo baadhi lagu dhigahayo adinkoo hilibkeeni iyo dheecaankeeni dhulka yaalla yaa inalaku bahdilin yaana mindida inalaku kilkilin shaqooyina ini yaalla insha allah waxyaalo badan ayaan gaalkacyo ka samayn doonaa iyo soonaha sacad ku degaan oo mudug waana ballan ilaahay in la qaado marka waa in sekuuradka la ilaaliyaa mudug waa inaan ma aragtay xuduudyada mudug soo xiranaa waxyaalo badan baa dhici doona marka insha allah isbedel badanna wuu dhacayaa marka insha allah taas ayaan samaynaynaa waana ini salaamahayaa bal hadhowna gabdhahan soo wada celinahayaa again markaan kafeegayga culamana aqaano saacada ay tahay weligay allay saacadaan sooma jeedin laakiin xal annaka dhan hurda la-aanaa nugu dhacday 12 saacankay lama gaarin marka waa kaasaa waa sugis oo rubi dhiman 4 ka soo kacay marka insha allah hadhow waan isku soo noqonaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hala sheergareeyo programkan daaqadaha looga tuuro qorqoor ha loo tuuro nin kastoo dheecaan la oo dhiig leh hadalkan waa inuu gaaraa hala sheergareeyo subscribe-gana saara programka kala kiciya subscribe saara channelku waa naanfacaya annaka dhan maaragtay viewska saara commentigiina soo qora
wixii aad ka qabtaan oo baroordiiqa kasoo qora oo oohina viewska iyo maaragtay subscribe-gan hala saaro kala kiciya subscribe waa saari kartaan wuxuu yahay ma lehe qofkiiba hal mar hadduu saaro gambaleelka furto waa daas fine saar hala kala kiciya asxaabtiinana la odeega hadhowna waa is arkaynaa iyadoo laynka laga buuxo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalihiga macalin soomaaliyeed